فلسطين ومقشانية أرور حماس اللي يدادو يهود جهاد كل شروس كدعيو دون ذا وحي بميا ليل وقراعية والاستفاعية أرور كان إنك السمية هجامين هجيي كرسو دول صارا ميل دقاقدو شركي سيما شرين مركو وحخرين أيو waraaqda kitaabka quraana oo akhrinaya inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay dhaadaan inaan ku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaabu garan waayo kitaabkii uu akhrinay waraaqdiisa arabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda arab uu leeyahay macdalik xoogga yuhuudeed buu hortaagan yahay dhakhtarkiisa yidhi aad baad u tamar darraysa waxaad u baahan tahay nasiino dabeetana wuxuu yidhi may masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay ahayd waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka Israa'iil ka kursiga lagu siday inta uu adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantanimada cirka maraynta loo soo diray gantaal lagu dhuftay yani ninkaasi hamu siday jidna intaas u kayay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya aqligana uu qabaa laakiin isma oran muqcad baatay qof fadhiya baataan waxba qaban karin isma lehe wuxuu u taagay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisa ba xoreeyo ummad dhan buu ahaa maxay hogaan ruuxiya oo hogaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlado dhan oo dunida waaweyn ba u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayuu adkaysan kari waayay koox qura هجانك وعنتنته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين والصبر كوحدة سوقنا إياه هجان وعنتنته هذا بقى أيها الأحبة وحين لنا هذا هدفك صح نغضه همده ولا جمارمان إن تقف هم له هان له هيكسي له هيرالو موغضه inaad noqoto waa laga maarmaan himadu meesha ay degtaana waxay culimadu yiraahdaan waa qalbiga haddii himadaadu ay korayso xataa jidhku hadduu quyuud ku xidhan yahay quyuudda uu ka furfurmaa himadu hadday korayso walidaalika ayuha alxiba waxay leenahay qofka hanku iyo himada sarraysa meelan camalkaagu gaadhin bay xataa ku gaadhsiin kartaa aakhiro nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkeena oo tilmaamay man hamma bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ninka wanaag ku hamiya ee xataa aanay u suurtogelin inuu qabto ilaahay wuxuu u qoraa maxay xasana kaamila baa la yidhi wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man sa'ala allaha shahaadata bisidq بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ننكا إلهي سنب ويدست شهادة إنه جهاتما شهاده هنكيسو هلكاسو جوغا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إلهي سبحانه وتعالى وحو قارسيا منازشه شهادة حتى هكو قريودنا محي فراشي سكوركي سنة هكو قريوده dugsiyada barashada quraanka ee Daarul Istiqaama isagoo jooga agtay online baa loogu dhigaa oo macalinka u hikaadsha oo sideyna abo SKB iyo imo aalad baa gudbinaysa oo uma baahna inuu aado oo dugsi joogo Daarul Istiqaama halka ardayga oo maxay barayaan aayaadkii quraanka ahadiis iyo tajwiid adkaar iyo ducooyin alifkoo loo hikaadsho aan kuugu daree tafsiirkana way u dhigaan madrasa Daarul Istiqaama madrasada Daarul Istiqaama oo uga barateen barashada quraanka kariimka kana qalin jabisay dufcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay barashada quraanka qaab online ah dalka ama dibadda meesha joogtaba waad noqon kartaa ardayga Daarul Istiqaama madrasadu waxay damaanad ku siinaysaa in xilligii lagu qabtay wax lagu bari doono ardayga wixii faahfaahintaas dheer iyo kala xiriir gmailada iyo lambarada shaashada ku qoran Daarul Istiqaama daarta cilmiga Thank you.